بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا iyo dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socdo sida aan wada ogsoonahay maalinnimadii shalay oo sabti ahayd waxaa dunida qaybaheeda kala duwan ka kala dhacaya ciyaaraha kubadda cagta ee isreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee 2026 ka oo lagu qaban doono wadamada Latin America oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Canada iyo Mexico. haddaba dalka Norway ayaa maalinnimadii shalay waxa uu kulan adag la ciyaarayay wadanka Israa'iil waxayna kulankani ahayd kulan ka duwan kulamadii kale ee isreebka ka dhacay qaaradda Yurub. kooxda kubadda cagta ama xulka qaranka Israa'iil ayaa maalinnimadii Khamiista ahayd waxa ay ka soo degteen garoonka Gardermoen ee caasimadda magaalada Oslo waxaana loo sameeyay ilaalo aad u xooggan iyada oo booliiska Norway ay galeen heegankii ugu sarreeyay oo ciyaartoy dartood loo sameeyo. waxaa la xiray hareeraha iyo wadooyinka soo galo hoteelkii laga dejiyay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway iyadoo maalinnimadii shalay oo sabti ahayd ay kulan adag la lahaayeen xulka qaranka Norway ka oo ka dhacay garoonka Ullevål ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. booliiska ayaa waxa uu xiray wadooyinka soo gala garoonka iyadoo si aad loo adkeynayay amniga kooxdan martida u ahayd dalka Norway. sidoo kalena waxaa magaalada Oslo qaybo ka mid ah ama bartamaheeda ka soo bilowday mudaharaadyo looga soo horjeedo in xulka qaranka Israa'iil uu ku dheelo Norway. mudaharaadayaasha ayaa waxa ay socod ka soo bilaabeen bartamaha magaalada Oslo iyaga oo ku yimid garoonka ay ku ciyaarayeen labada xul. booliiska ayaa amniga si aad u adkeynayay waxayna xireen wadooyinka soo gala garoonka. si taalamidana waxaa jiray booliis kayd ahaa oo loo diyaariyay xaaladaha degdega ah ee dhici karo. mudaharaadayaasha qaar ayaa waxa ay isku dayeen in ay gudbaan xeyndaabkii uu booliiska ugu talagalay taa oo saameysay in booliisku uu isticmaalo awood iyo sunta dadka ka ilmaysiiso. isku dhaca booliiska dhexmara ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen ku dhawaad 200 oo qofood oo ka tallaabtay xeyndaabkii iyo xuduudii booliiska u sameeyay mudaharaadayaasha. ciyaartan oo ahayd ciyaar dhexmaraysay xulalka qaranka Norway iyo Israa'iil oo ka tirsanayd isreebka koobka adduunka ee 2026 ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 5-0 oo ay guusha ku raacday xulka qaranka Norway waxaana ciyaartan 3 ka mid ah goolasha ay ku badiyeen Norway u dhaliyay xidigooda iyo xidiga kooxda Manchester City ee reer Ingiriis Haaland oo hat-trick ka dhaliyay garoonka. ciyaartan ayay Norway waxa ay ku guuleysatay 5-0 in ay ku garaacdo waliba ciyaar xiiso badneed oo xamaasad lahayd marka loo eego xulka qaranka Norway. ayashee mudaharaadayaasha oo aad u xooganaa iyo isku dhac badan ayaa waxa uu ka dhacay garoonka dibadiisa kuwa oo ay ku lug lahaayeen dadka soo horjeeday xulka qaranka Israa'iil iyo nidaamka reer Israa'iil ee ka shaqeeya bariga dhexe. mudaharaadayaasha ayaa iyagu waxa ay wateen calamada Falastiin iyo boorar ay ku qoran yihiin ereyada ay kaga soo horjeedaan Israa'iil iyo ficiladeeda foosha xun oo ay kula kacayso shacabka reer Falastiin ee ku dhaqan marinka Gaza. taliyaha howlgallada booliiska Gabriel Aldefeld ayaa isagu sheegay in ay qabteen ilaa iyo 20 qofood oo soo gudbay xeyndaabka sidoo kalena sameeyay amar diido iyo sidoo kale kharibaad waxa ayna si toos ah uga hor yimaadeen ayuu sheegay booliiska oo xeyndaabkaasi amnigooda sugayay. 22 qof ee loo taxaabay xabsiga ayaa subaxnimadii saakay oo axad ahayd waxaa 7 ka mid ah laga sii daayay xabsiga iyadoo la qorsheynayo in qaar kalena laga sii daayo xabsiga. waxayna qareenka booliiska Anna Karina xaqiijisay in dadka la sii daayay iyo kuwa la sii dayn doonaba maanta lagu ganaaxay lacag gaaraysa 18,000 oo karanka Norwegian ah ka oo loogu ganaaxay kharibaadda iyo kharbudaadda ay sameeyeen markii ay mudaharaadayeen. waxaana lagu soo waramayaa qaar kale oo ka mid ah in lagu sii hayn doono xabsiga halka qaar kale lagu soo waramayo in loo tarxiili doono dalalkii ay ka yimaadeen maadaama mudaharaadayaasha ay isugu jireen dalal kala duwan oo ka soo horjeeday ficilada Israa'iil ay kula kacayso shacabka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza. madaxa Falastiiniyiinta Norway Lina Khitaab ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in Norway ay Israa'iil ku garaacday 5-0 waxayna intaa ku dartay in ay aad uga soo horjeedaan in xulka Israa'iil uu u tartamo ama ku soo baxo koobka adduunka. waxa ayna ku baaqday in laga reebo xulka Israa'iil isreebka tartanka koobka adduunka sida looga reebo wadanka Ruushka oo dagaal ba'an uu kala dhaxeeyo wadanka Ukraine.
waxaa kaloo xusid iyo xusuusin mudan in xulka Spain ee haysta koobka adduunka uu horaantii bishan ugu hanjabay in uu ka bixi doono koobka adduunka haddii ay soo baxda Israel oo uusan ka qayb qaadan doonin. Arrintan ayaa waxaa ka mid ah wadamada ka soo horjeeda in Israel u soo baxdo koobka adduunka wadanka Talyaaniga oo isaguna kulamo adag la yeeshay Israel, waxaana ka mid ah taageerayaashooda iyo tababaraha reer Itaaliya oo aad uga soo horjeeda kulan dhexmaray toddobaadkii ka hor labada wadan oo ka dhacay wadankaasi Talyaaniga. haddaba ciyaarta Norway iyo Israel dhex martay ayaa waxa ay dhalisay mudaharaad xooggan oo ka dhacay caasimadda wadanka Norway ee Oslo oo looga soo horjeeday xulkan ciyaarta adag ay dhex marayso wadanka Norway. guusha ayay Norway raacday waxaana tartankan jarreebka koobka adduunka uu ka dhacaya qaybo kala duwan oo qaaradaha adduunka ah oo la isugu diyaarinayo in loogu soo baxo koobka adduunka ee 2026 ka dhici doona wadamada Mareykanka, Canada iyo Mexico. haddaba halka ay wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.